Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaad kusoo dhawaataan Somali Web Dev. Maanta waxaan baran doonaa sida loo isticmaalo git ignore kaasoo loo isticmaalo markaad codekaaga ku publish gareynaysid GitHub-ka inaad waxyaabaha qaar aad doonayn in public u arkaan aad ka saartid fileka. Iminka oo kale xagga 2 file baan ku haystaa. Waxaadna tusi doonaa sida kolba mid loo qariyo adigoo isticmaalaya git ignore. Marka waxaan isku daynaa marka ugu horeysa inaan qarino hal.js ka aan bilaabno. Marka ugu horeysa waxa weeyaan inaad file ka samaysid .gitignore kaasoo ah git ignore. Marka waxaad ku qoraysaa /hal.js kabacdina waxaad ku publish gareynaysaa GitHub-ka. Marka fileka waxaan qarinayaa hal.js/hal.js. Marka iminka waxaan ku haystaa meesha 2 file. Marka waxaad arki doontaa mid kaliya aan ku haysan doonaa markaan publish gareeyo. Marka aan publish gareeyo git add oo ah dhammaan filelalka oo dhan buu ku wada darayaa meesha. Kabacdina git commit oo ah added hal.js to ignore. Kabacdina waxaad ku push gareynaysaa branch-ka oo ah master push origin master. Marka ciddii aan garanayn sida loo isticmaalo GitHub-ka video kale aan insha Allah samayn doonaa oo ah qaabka loo isticmaalo GitHub-ka iyo waxyaabaha. Markaan eegno refresh garee. Waxaad ku aragtaa file kaliya midka ku aragtaa oo 2.js. Waa git ignore baan isticmaalay folderkii waan qariyay hal.js. Qaabkaas loo isticmaalaa haddaad doonaysid git ignore qaabkaas loo isticmaalaa oo fileka aad doonaysid baad / ka horeysiinaysaa magaciisa baad ku xigsiinaysaa hal.js haddaad doonaysid inaad ka labaad qarisid 2.js. Marka intaasaan kusoo koobayaa maanta.